Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Welcome back. Soo dhawaada mar kale. Maanta waxaan idin hayaa waxa la yidhaahdo adverbs, falkaabyada ama ficil caawiyayaasha. Adverbs, falkaabyada ama ficil caawiyayaasha modify waxa ay wax ka bedelaan verbs, ficilada, adjectives, sifeeyayaasha, and even iyo xataa other adverbs, falkaabyada kale. Adverbs, falkaabyada ama ficil caawiyayaasha answer waxay ka jawaabaan the questions, su'aalaha how, sidee, where, xagee, when, goorma, and how often iyo meeqa jeer camal, or to what extent, heer intee gaarsiisan ama intee la-eg. Sidoo kale adverbs, falkaabyada tell us waxay noo sheegaan how an action occurred, sida uu ficil u dhacay, iyo sidoo kale adverbs give us more information about when an action occurred, goorta uu dhacay ficilka ayay warbixin dheeraada naga siiyaan. Sidoo kale where the action occurred iyo meesha uu ka dhacay ficilka. Adverbyada iyo haddii la isbarbar dhigo adjectiveyada, weliba nooc adverbska ka mid ah oo aynu maanta baran doono oo la yidhaahdo adverbs of manner, inta badan adjectiveka ama sifada unbaad soo qaadaysaa kadibna waxaad ku daraysaa ly, markaasi wuxuu isku bedelayaa adverb. Tusaale ahaan quick, degdeg waa sifo. Quickly, si degdeg ah waa adverb. Jumlad haddaynu gelino he is a quick runner, isaga waxa weeye qof si degdega u orda. Adverb marka laga dhigo waxay noqonaysaa he runs quickly, si degdega ayuu u ordaa. Marka quick tan hore oo jumladda hore ku jirta waxay u noqonaysaa oo sifo ay naga siinaysaa he oo isaga ah oo pronounkii ah. Quickly oo jumladda dambe ku jirta waxa ay u noqonaysaa oo ay sifo dheeraad naga siinaysaa ficilka ah runs ama orodka. Careful, taxadar. Carefully ayay noqonaysaa marka adverb laga dhigo. She is a careful driver. Iyada waxa weeye darawal taxadar badan. She drives carefully. Waxa ay u wadaa si taxadar leh. She drives carefully. Waxaa jira erayo marka ay adjective yihiin oo adverb loo bedelaya sidooda loo soo qaato oo aan waxba lagu darin waxbana aan laga jirin. Erayadaasi gadaal dambe ayaynu ka baranaynaa, laakiin tusaalahan fast, degdeg, fast unbay ahaanaysaa. Kan horena waa sifadii oo adjective, kan dambena waa adverbkii. Haddii aynu jumlad gelino he is a fast runner, isaga waxa weeye qof si degdega u orda. He runs fast, waxa uu u ordaa si degdega. Adverbs often end in ly but not always. Falkaabyada inta badan waxa ay ku dhammaadaan ly, laakiin had iyo jeer sidaas ma aha oo waxaa jira erayo badan oo falkaabyo ah oo aan ly ku dhammaanin. Sidoo kale waxaa jira erayo kale oo aan ahayn adverb ama falkaab oo ly ku dhammaada. Quickly, quickly si degdeg ah. Slowly, slowly si gaabis ah. Loudly, loudly si oo dhawaaq dheer. Absolutely, absolutely gebi ahaanba. Painfully, painfully si xanuun kulul ama xanuun badan. Seriously, seriously si halis ah ama khatar ah. Daily, maalin kasta. Monthly, bil kasta. Weekly, isbuuc walba. Generally, guud ahaan. Sidoo kale waxaa jira erayo kale oo adverb ah oo aan ly ku dhammaanin, waxaana ka mid ah tusaale ahaan very, very. Often, often. Ereygan dadka qaar marka ay ku dhawaaqayaan waxay yidhaahdaan often oo tida way qariyaan. Dadka qaarna waxay yidhaahdaan often, marka labadaba kii aad ugu dhawaaqdaba waa sax. Sometimes,
mararka qaarkood, usually sida badan ama sida caadiga ah, always had iyo jeer. Marka usually iyo always maxay ku kala duwan yihiin? Usually waa sida badan, yacni qiyaas ahaan 80%. Always waa had iyo jeer 100%. Still weli. Today maanta. Erayadan oo dhan waa adverbs ama waa falkaab. Erayada iyagana adverbka iyo adjectivekooda isku mid yahay oo aanay isbedelin waxbana aan lagu darin waxaa ka mid ah fast, degdeg, had, adayg, late, early, short, gaabnaan, fine, fiicnaan. Erayadan oo dhan waxba lagama bedelo, sidaas ay yihiin ayaa adverb ahaana loogu isticmaalaa. Examples, jumlado kale oo tusaalayaal ah oo he ran quickly towards the door. Waxa uu si degdega ugu orday dhinaca albaabka. He ran waxa uu u orday quickly si degdeg ah towards the door, albaabka dhankiisa. He took the test yesterday. Waxa uu qaatay ama wuxuu galay imtixaankii shalayto. Erayadan oo hoos ka xariiqan waa adverb ama waa falkaab. He took the test twice. Waxa uu galay ama waxa uu qaatay imtixaankii 2 jeer. He took the test twice. Today we will receive our certificates. Maanta waxaanu heli doonaa ama waxaanu gudoomi doonaa shahaadooyinkeena. Today we will receive our certificates. I often drink coffee in the morning. Inta badan waxaan cabaa qaxwo subaxii. I often drink coffee in the morning. Types of adverbs, noocyada falkaabyada iyo adverbyada. Waxaa jira 5 nooc oo ugu muhiimsan adverb ah. Nooca ugu horeeya waxaa la yiraahdaa adverb of frequency. Waa adverbka oo noo sheega sida isdaba jooga ah ama inta jeer oo uu markaasi uu soo noqnoqdo wax. Adverb of frequency ayaa la yiraahdaa. Adverbs of frequency answer the question how often. An adverb of frequency waxa uu ka jawaabaa su'aasha ah how often, meeqa jeer camal. Erayaasha oo adverb of frequency waxaa ka mid ah always, had iyo jeer, usually sida badan ama sida caadiga ah, often inta badan, rarely mar dhif ah, never marnaba, once hal mar, twice laba jeer, sometimes mararka qaar, seldom mar dhif ah. Marka erayadan oo dhan waxaa la isku yiraahdaa adverb of frequency. Mary, gabadha la yiraahdo Mary, rarely mar dhif ah ayay goes out dibadda u baxdaa in the winter, xilliga qaboobaha. Mary rarely goes out in the winter. Tom never comes late to work. Tom abidkiis ma yimaado shaqada isaga oo daahsan. Tom never comes late to work. Layla always works hard. Layla always works hard. Layla had iyo jeer si aad ah ayay u shaqaysaa. Jumladan 2 adverb ama 2 falkaab ayaa ku jira, midkan hoosta ka xariiqan oo always iyo kaas u dambeeya oo ah had. Labadaba waa falkaabyo. I seldom study. Marmar dhif ah ayaan wax akhriyaa. I aniga seldom marmar dhif ah study ayaan wax bartaa ama wax akhriyaa. Where do adverbs go in a sentence? Adverbyada halkee ayay ka galaan jumladda? Adverbyada waxaa jira 3 boos oo markaasi jumladda ay qaadan karaan. Mid waxa weeye booska koobaad ama position 1. Midka kalena waxa weeye booska dhexe ama second position. Dadka qaarna waxay u yaqaanaan middle position, booska dhexe. Dadka qaarna waxay yiraahdaan second position, booska labaad.
booska saddexaadna waxa weeye at the end of the sentence jumladda meesha ugu dambaysa dadka qaarna booskaas waxay yidhaahdaan third position ama booska saddexaad adverbs of frequency adverbyada oo frequency-ga ama inta jeer ee shay uu dhaco noo sheegaya usually sida badan go waxa ay galaan in the middle position booska dhexda they sometimes go in the beginning of the sentence mararka qaarkood jumladda bilowgeeda ayay galaan they can also go in the end position sidoo kale booska ugu dambeeya ayay geli karaan marka waxa lagala jeedo midani waxa weeye booska dhexe ama booska koowaad ama booska ugu dambeeya wax kale ma aha waxa uun laga wadaa jumlad marka la sameynayo jumladda waxa weeye badanaa waa subject ficil sameeyaha plus verb iyo ficilkii plus object iyo ficilka meeshii uu ku dhacayay waa saddexdaas marka la yidhaahdo booska koowaad subjectiga ayuu kasoo hormarayaa oo jumladdii baa laga bilaabayaa marka la yidhaahdo booska labaad ficilkii ugu muhiimsanaa jumladda ayuu kasoo hormarayaa oo wuxuu gelayaa subjectiga iyo ficilka dhexdooda booska saddexaad ama third position ama kan ugu dambeeya waxa weeye ficilka iyo objectigiisa gadaashooda ayuu gelayaa marka ficilka iyo objectigiisa dhexdooda lama gelin karo ficilka iyo objectiga gadaashooda ama meesha jumladda ugu dambeysa ayuu gelayaa sidoo kale falkaabyada once twice again mar kale annually sanad kasta monthly bil kasta yearly sanad kasta etc iyo waxa la mid ah usually caadi ahaan ama sida badan go waxa ay galaan at the end position of the sentence booska ugu dambeeya jumladda ayay kuwaasi galaan tusaale ahaan he won waxa uu ku guulaystay the golden boot kabta dahabka ah twice laba jeer marka falkaabkaas twice meeshii ugu dambeysaa la geliyey sometimes I drink tea in the morning mararka qaarkood subaxii shaah ayaan cabaa marka jumladdii ayaa laga bilaabay sometimes I drink tea in the morning subaxii ayaan cabaa sidoo kale waa loo dambeysiin karay oo waxaa la dhihi karay I drink tea in the morning sometimes laakiin waxaa ka habboon in aad ka bilowdo sababtoo ah sometimes waxa ay ku jirtaa falkaabyada oo inta badan jumladda lagu bilaabo I always go to bed early I always go to bed early had iyo jeer sariirta waxaan tagaa xilli hore marka saddexdan jumladood haddii aad fiiriso tan ugu horeysa oo ah he won the golden boot twice falkaabkii ama adverbkii waa loogu dambeysiiyey oo end position baa la geeyey ama third position booskii saddexaad jumladda labaad oo sometimes waxaa falkaabkii la geliyey positionka koowaad ama beginning of the sentence meeshii uu ka bilaabanayay jumladda ugu dambeysa falkaabkii ahaa always waxaa la geliyey second position ama booska labaad ama middle position booska dhexe sababtoo ah subjectigii oo I ah iyo ficilkii oo go ah dhexdoodii ayaa la geliyey marka waa second position ama middle position adverb of degree adverbka oo markaasi noo sheega heerka ama inta uu wax gaadhsiisan yahay adverb of degree answers wuxuu ka jawaabaa the question su-aasha how sidee sida ay wax u dhaceen ama sida wax loo sameeyey ayuu noo sheegaa ereyada oo adverbs of degree ku jira waxaa ka mid ah badly si xun very aad really dhab ah ama xaqiiqo ah entirely gebi ahaanba extremely si aad xad dhaaf u ah absolutely gebi ahaanba a lot wax badan a bit xoogaa yar erayadan oo dhan waxa ay iskaga mid yihiin waxaa la isku yidhaahdaa adverbs of degree he was badly injured waxaa dhaawac u gaadhay si xun how was he injured siduu dhaawaca u gaadhay badly si xun he was badly injured
I can barely hear you. I can barely hear you. And kuma maqli karo. yacni qof marka uu hadalkiisa gaabis kugu yahay xagga taleefanka oo kale aad kula hadlayso ood maqli kare la'dahay ereygan ayaa la isticmaalaa I can barely hear you yacni aad kuma maqlayo weeye macnaheeda barely waa in yar the temperature heerkulka is extremely hot today maanta aad iyo aad ayuu u kulul yahay the temperature heerkulka is extremely hot today aad iyo aad ayuu u kulul yahay maanta jumladani labo adverb ama labo falkaab ayaa ku jira mid waxa weeye extremely midka kalena waxa weeye today they go to the cinema a lot waxa ay aadaan shaneemada wax badan they go to the cinema a lot where do adverbs of degree go in a sentence adverbs of degree jumlada halkay ka galaan adverbs of degrees usually go in the middle position waxa ay galaan middle position ama booska labaad sida badan ama sida caadiga ah mostly sida badan they are in this format qaabkan ayay leeyihiin adverb of degree-ga ayaa lasoo qaadaa kadibna waxaa la raaciyaa adjective-ka ama adverb of degree-ga ayaa lasoo qaadaa waxaa la raaciyaa main verb-ka ama ficilka oo jumladda ugu weyn ama ugu muhiimsan tusaale ahaan Layla gabadha la yiraahdo Layla looked waxay u muuqatay extremely happy si xad dhaaf ah inay u faraxsan tahay at her wedding markii ay joogtay arooskeeda Layla looked extremely happy at her wedding an adverb of degree-gii iyo waxaa la israaciyey iyo adjective-kii markaasi waxa weeye adverb of degree plus adjective She carefully wiped the glass window. She iyada carefully si taxadar leh ayay wiped u tirtirtay the glass window dariishadii dhalada ka samaysnayd marka tanna waxa weeye adverb of degree plus main verbka oo jumladani ku jira waa wiped adverb of time adverbyada oo noo sheega waqtiga adverb of time adverbka oo waqtiga noo sheega answers wuxuu ka jawaabaa the question su-aasha when goorma erayaasha oo adverb of time waxaa ka mid ah recently goordhow still weli already waqti oo markaasi hore oo lasoo dhaafay today maanta yesterday shalay before ka hor later kadib finally ugu dambeyn tusaale I recently purchased a new car dhowaan waxaan soo iibsaday gaadhi cusub I aniga recently dhowaan purchased waxaan soo iibsaday a new car gaadhi cusub I uploaded the video already videoga mar hore ayaan soo geliyey I aniga uploaded waxaan soo geliyey the videoga already mar hore I will talk to you later waxa aan kula hadli doonaa goor dambe I will talk to you later Where do adverbs of time go in a sentence adverbs of time jumladda halkay ka galaan adverbs of time usually go at the end of the sentence adverb of time-ka sida caadiga ah ama sida badan waxa ay galaan booska ugu dambeeya jumladda ama booska saddexaad and they sometimes go at the beginning mararka qaarkoodna bilowga ayay galaan of the sentence ee jumladda marka sida badan booska ugu dambeeya jumladda ayay galaan laakiin mararka qaarkood bilowga way geli karaan tusaale I will visit my teacher tomorrow berri waxaan booqan doonaa macallinkayga tomorrow waa adverbkii meesha ugu dambeysa ayuu galay I will visit my teacher tomorrow yesterday shalay it rained roob ayaa da'ay so hard aad ayuu u da'ay
I could not go to work. Shaqada ma aanan aadi karin. Adverbs of place. Falkaabyada oo noo sheega meel. Adverb of place-ka answers wuxuu ka jawaabaa the question su-aasha ah where xagee. Ereyada oo adverb of place waxaa ka mid ah here halkan, there halkaas, everywhere meel kasta, somewhere meel uun, upwards kor, upstairs dabaqa kore, downstairs dabaqa hoose, backward gadaal gadaal. Sna waa la raacin karaa oo waa la dhihi karaa backwards, towards dhinacaas. Jumlad haddaynu gelino tusaale ah the car is over there. Gaadhiga wuxuu yaalaa halkaas. The car is over there. I lost my pen somewhere. Qalinkaygii meel buu iiga dhumay. I lost my pen somewhere. Mary's office is upstairs. Mary xafiiskeeda wuxuu ku yaalaa dabaqa kore. Mary's office is upstairs. Where do adverbs of place go in a sentence? Adverb of place-ka jumladda halkuu ka galaa. Adverb of place usually go at the end of the sentence. Adverb of place-ka sida caadiga ah jumladda waxa uu ka galaa booska ugu dambeeya ama booska saddexaad. And they sometimes mararka qaarkood go at the beginning of the sentence. Jumladda bilowgeeda ayay geli karaan mararka qaarkoodna. Sida badan booska ugu dambeeya ama booska saddexaad bay galaan, mararka qaarkoodna bilowga ama booska koowaad ayay galaan. Tusaale, he looked up into the sky. Waxa uu kor u fiiriyey cirka. He looked up into the sky. Marka adverbka meesha ku jira waa sky. Outside, a small crowd of people gathered. Banaanka waxaa ku soo ururay koox dad ah. Outside, a small crowd of people gathered. Banaanka waxaa ku soo xoomay koox dad ah oo yar. Adverb of manner waxa uu noo sheegaa sida wax loo sameeyey, qaabka wax loo sameeyey. Adverb of manner tell us wuxuu noo sheegaa how an action is done, sida ficilka loo sameeyey. It answers wuxuu ka jawaabaa the question su-aasha ah how sidee. Badanaa adverbyada oo ly ku dhammaada waxay u badan yihiin adverb of manner. Adverb of manner ereyada ka mid ah waxaa ku jira quickly si degdeg ah, softly si jilicsan, honestly si daacadnimo ah, well fiican, accidentally si markaasi ah kama ama shil, awkwardly si qaab daran. Ereygan awkwardly w-da eeda ku xigta waa la qarinayaa oo waxaa loogu dhawaaqayaa awkwardly. Carefully si taxadar leh, clearly si iska cad ama waadix ah, nicely si wanaagsan. She carefully placed the food on the table. She iyada carefully si taxadar leh ayay placed u saartay the food cuntada on the table miiska dushiisa. He swims well. Waxa uu u dabaashaa si wanaagsan. Marka ereygan well waxa weeye waa adverbka oo adjectiveka ama sifada la yidhaahdo good. Good adverbkeeda waxa weeye well. Ereygan arday badan ayaa khalad sameeya marka ay isticmaalayaan oo beddelkii ay isticmaali lahaayeen ereygan ayaa waxay dhahaan he swims good. Marka ma dhihi kartid he swims good sababtoo ah good waa adjective. Adigana waxaad doonaysaa inaad ka hadasho sida qaabka uu u dabaasho oo ficilka ah. Marka adjective ficil ma sifayn karo. Haddii aad rabto ficil inaad sifayso ama aad warbixin dheeraada ka bixiso, adverbka isticmaal oo ah well. He accidentally broke the bottle. Waxa uu si kama ah ama si shil ah u jabiyey dhaladii. He isaga accidentally si shil ah broke ayuu jabiyey the bottle dhaladii. I could clearly see the lion in the distance.
waxa aan si waadixa u arki karay libaaxa meel masaafo jirta. I could waxaan awooday clearly see si waadixa inaan u arko the lion libaaxa in the distance meel yaro fog oo masaafo jirta. Where do adverbs of manner go in a sentence? Adverb of manner jumladda halkay ka galaan? Adverbs of manner usually sida caadiga ah go waxa ay galaan after the main verb. Ficilka ugu muhiimsan jumladda gadaashiisa ayay galaan. But laakiin it can be placed before the main verb. And ficilka ugu muhiimsan hortiisa waa la dhigi karaa. Tusaale ahaan, I eat my breakfast quickly every day. I aniga eat waan cunaa my breakfast quraacdayda quickly si degdeg ah every day maalin kasta. I quickly ate my breakfast yesterday. I aniga quickly si degdeg ah ate ayaan u cunay my breakfast quraacdayda yesterday shalay. Labadan jumladood midna falkaabkii ama ficil caawiyihii ficilkii ayaa laga soo hormariyey, marna ficilkii ayaa laga dambeysiiyey. Marka labadaas boosbo wuu geli karaa, laakiin waxaa muhiim ah marka aad ficilka ka dambeysiinayso objectigana waa inuu kasii dabamaraa. Marka objectiga iyo ficilka dhexdooda ha gelinin. Eat waa ficilkii, breakfastina waa objectigii, dhexdooda ha gelinin. Marka haddii aad rabto ficilka inaad ka dabamariso waa inaad objectigana dhaafisaa oo aad objectiga gadaashiisa dhigtaa. He works hard every day. Waxa uu u shaqeeyaa si adag maalin kasta. He works waxa uu u shaqeeyaa hard si adag every day maalin kasta. There are words that are not adverbs that end in ly. Waxaa jira erayo aan adverb ama falkaab ahayn oo ku dhammaada ly. Maxay yihiin? Waxaa ka mid ah words like erayada sida friendly saaxiibtinimo, laughly si la jeclaysan karo, deadly si dhimasho leh, cowardly si fulaynimo ah, ugly fool xun, silly nacasnimo, timely si oo waqtigii la rabay ama waqtigii la filayay, shortly goor dhow. These words are adjectives not adverbs. Erayadan oo dhan waxa weeye waa sifo ama adjective ma aha adverbs. Erayadan haddii aad adverb oo iyaga loo bedeli karo oo laga dhigi karo ma lahan oo u dhigma. Laakiin haddii aad rabto adverb ahaan erayadan inaad u isticmaasho waxaa lagu daraa ereyga manner. Sida they arrived in a timely manner. Waxa ay u yimaadeen si waqtigii la filayay. They arrived in a timely manner. Sidoo kale wayna waa lagu dari karaa oo ama ereyga way ama manner ayaa lagu daraa si markaasi falkaab loogu bedelo. cashirkii maanta intaasa inoo joogo. Inta aynu ku kulmi doono cashirkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.